السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيارتين عن جعلنا هاي رمضان كريم ميل والبو أدونك دعالدي شكا جوكتان كسو دوادا برنامج كينا فاقداد عيارها قضو بدا عيدين كوهينا وحا كامدا kooxda Manchester United iyo kooxda Villarreal ayaa isku soo haray ciyaarta ugu dambeysay ee finaalka tartanka Europa League iyagoo ka soo kala adkaaday kooxaha Roma iyo kooxda Arsenal. Kooxda kubadda cagta Manchester United oo u safartay wadanka Talyaaniga si ay kula soo ciyaarto kooxda AS Roma ayaa waxaa looga soo badiyay 3-2 hase yeeshee ciyaartii hore ay kooxda Manchester United garoonkeeda Old Trafford uga badisay kooxda Roma 5-2 ayay fursad u ahayd in ay tagto finaalka tartanka Europa League. Si kastaba ha ahaatee kooxda Manchester United ayaa waxa ay ku sii shaqaysatay kulankii Old Trafford kadib markay kooxda Roma uga soo badisay 6-2. ciyaartii caawa ka dhacday garoonka Roma ayaa asigana waxa uu ku dhamaaday 3-2. celcelis ahaan goolasha ay kooxda Manchester United iyo Roma iska dhaliyeen ayaa waxa ay kala yihiin 8 gool ay dhalisay kooxda Manchester United labada lugood iyo kooxda Roma oo 5 gool dhalisay labada lugood. Sidaas darteed kooxda Manchester United ayaa waxa ay u gudubtay finaalka tartanka Europa League. dhanka kale kooxda Arsenal iyo kooxda Villarreal ayaa waxa ay ku wada ciyaareen Emirates Stadium oo ay ku dheesho kooxda Arsenal. Kooxda Arsenal ayaa caawa waxa laga rabay hal gool oo kaliya si ay ugu soo gudubto finaalka tartanka Europa League. hase yeeshee kooxda Arsenal iyo kooxda Villarreal caawa wax gool ah iskama aysan dhalin. sidaas darteed ciyaartii hore ee lagu soo dheelay guriga Villarreal waxay ku soo badiyeen kooxda Villarreal 2-1. sidaas darteed kooxda uu wato macallin Arteta ayaa ah kooxdii ka hartay tartanka Europa League. sidaas darteed kooxda Manchester United iyo kooxda Villarreal ayaa isku ballansaday finaalka tartanka Champions Europa League. kooxda Arsenal taariikhda muddooyinkan dhow waa markii ugu xumayd oo ay ku jirto xilli ciyaareed aad u murugo badan kadib markii ay dhammaan ka hartay tartamada Yurub xilli ciyaareedka soo socdo ayadoo kaalinta 9aad kaga jirto horyaalka Premier League. kooxda macallin Unai Emery oo ay Arsenal shaqada ka ceydisay xilli ciyaareedkii hore oo ay ku bedeshay macallin Arteta ayaa koobkan si fiican u yaqaano kadib markii uu ku soo guuleystay 3 jeer asiga oo macallin u ah kooxda Sevilla. waa macallin qabiir ku ah macallinka kooxda Sevilla wato ee hadda finaalka la fadhiyo kooxda Manchester United. dhanka kale kooxda Manchester United ayaa waxay u safartay caawa kooxda Roma ee wadanka Talyaaniga halkaas oo ciyaar xiiso badan ku dhexmartay kooxda Manchester iyo kooxda Roma. ciyaartaas oo ku soo dhamaatay 3-2. ciyaarta oo marayso 39 daqiiqo waxaa ismarwaagi gool la'aanta jabiyay ciyaaryahan Edinson Cavani oo meel 20 yar u jirto ka toogtay goolka kooxda Manchester United. hase yeeshee qaybtii labaad ayaa waxaa barbareeyay oo ciyaarta 1-1 ka dhigay ruucadaaga Edinson Dzeko oo kooxda Roma goolka u soo celiyay. hase yeeshee 8 daqiiqo kadib ayay kooxda Roma goolka labaad heshay. kadib goolka barbaraha ayaa haddana Manchester United heshay oo ciyaarta waxaa 2-2 mar labaad ka dhigay weeraryahankooda ruucadaaga Edinson Cavani oo ciyaartan labada lugood ka dhaliyay 4 gool. kulankii Old Trafford u dhaliyay 2 gool iyo kulankii caawa oo Olympic ka dhaliyay 2 gool. sidaas darteed ciyaarto dhamaarato ayay kooxda Manchester United difaaceeda Taylor wuxuu iska dhaliyay goolka saddexaad ee kooxda Roma heshay. ciyaartii ayaana waxay ku soo dhamaatay 2-3. dhanka kale ciyaar xiisab iyo xamaasad badan ayaa sanadkan socdo ayadoo kooxda Real Madrid iyo kooxda Chelsea la ogaa habeen hore wixii ku dhexmaray garoonka Stamford Bridge. kooxda Real Madrid ayaa waxaa lagu jijiday oo looga badiyay garoonka Stamford Bridge ay ku dheeshay kooxda Chelsea kadib markii 2-0 lagu dubtay. sidaas darteedna ay kooxda Chelsea iska xaadirisay finaalka Champions League. kooxda Manchester City ayaa habeenkii ka soo horeeyay ayadana waxay taariikh u ahayd markii ugu horeysay ee abid ay finaalka tartanka Champions League ay tagto ayadoo reebtay oo finaalka ugu gudubtay kooxda PSG. haddaba waxaa iskugu soo haray sanadkan tartanka Champions League 2 kooxood oo Ingiriis ah. labadaas koox oo kala ah kooxaha Manchester City iyo kooxda Chelsea. haddaba waxaan eegi doonaa oo falaaqayn weyn ku subin doonaa kooxdii qaaday